annagoo u kurgalayna howlaha ganacsi ee ka jira suuqa bakaaraha oo udubdhexaad u ah ganacsiga Soomaaliya iyo roobabkii baryihii la soo dhaafay ka da'ayay magaalada Muqdisho iyo waxa ay ka bedeleen ganacsiga iyo isu socodka dadweynaha halka u adeeg doonta ayaan booqanay suuqa waxaana la kulanay ganacsato kala duwan oo inooga warramay isbedelada ganacsiga oo ay hay'adaha nabadgelyadu wax badan ka bedeleen dhibaatooyinkii amni darro ee jiray wadooyinkii maamulka gobolka Banaadir oo ku balaariyay ganacsiga suuqa bakaaraha waxa ay ka bedeleen ciriirigii badnaa socdaalkeena shaqo oo aan ka bilownay jidka labaad ee bakaaraha oo ah meelaha ugu mashquulka badan isla markaasna maamulka gobolka Banaadir iyo ganacsatada suuqa bakaaraha iska kaashadeen wada laami ah in la saaro jidka isku xira howlwadaag iyo isgoyska Baarubax kaas oo hadda ay biyo fariisimo ka sameysteen inta u dhaxaysa masaajidka Xareed iyo Baarubax waxayna walaac muujiyeen ganacsatada suuqa xal u helida biyaha jaray wadada dhawaan dib u dhiska heshay meesha daaragtaan aan fadhiyo waa meeshaas biyo fadhiyaan biyo markay fariistaan wax ganacsi ma leh dadku wax ganacsada dadka xaq yimaada iyo waxa qiimo xaq u socda ganacsada meesha markii dadkii waa ka wareegsada marka meesha aan fadhino meesha biyo ku tuwanay saaran awla meeshaas la fariisanto caadiga oo fariisanto waxaan ka codsanaa dawladda biyahan markii meesha galaan dadka dib badan ku hayaan macaamil loo soo maro meesha macaamil waxaan ahay ganacsada ka shaqeysta suuqa bakaaraha meesha lagu magacaabo masaajidka Xareed wadada la ujeedo dhibaato badan lagu qabaa waxa ugu horeysa biyahan ay fadhiisanayaan ilaa iyo 2 bilood sano kamera ay socodka bini'aadamka oo dhan waa xirma qaar ka tirsan ganacsatadan ayaa ugu baaqay wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka Banaadir inay wax ka qabtaan dhibaatooyinkii la soo darsay isu socodka mehradahooda ganacsi iyo biyo xireenadan dhibaatada ka iman karta xaajiro mararka qaarkood oo kale albaab oo naga xiran oo hortiisina biyo noo yaalaan annagana markii aan gelayna aan taagsanayna amba taayir aan ku gelayno albaabka noola soo garaa waxa la leeyahay cashuur ayaa loo baahan yahay marka taas waxaan jeclaan lahaynaa xataa anaga cashuurtana laga qaado in aan aragno waxa lagu qabanaayo markaas xataa anaga xataa ma dhuuman lahayn mararka qaarkood waxaa jirto ninka cashuurta xagoo soo maraya waa dhuumanaynaa maxaa uu kalifaayo cashuurtana laga qaado ma arkayna meel ay gelayso waddanka haddii maamul ka jira waxa la rabaa dadkaas meesha in la gudmad loo sameeyo oo muxuu ahay qashinka lagu shubayo iyo wasaqda iyo jeermiska dhalanaya in la helo dadka iyo dalka waddan kale in la helo suuqa bakaaraha oo ay markii ugu dambeysay uu cariiri badan ka jiray wadooyinka dhexmara dadka adeegyada ganacsi u soo doontana si dhib badan u mari jireen gaadiidka iska badaayay ayaa hadda u muuqda inay taasi meesha ka baxday kadib markii wadooyin waaweyn uu u hirgeliyay maamulka gobolka Banaadir sidoo kale waxaan booqanay iskuulka X Xamar Jadiid ee ku yaala dhabarka dambe ee suuqa bakaaraha kaas oo ay maleeshiyaadka kooxda ugus dadka ku dili jireen ka hor intii aan magaalada Muqdisho laga saarin loona aqoon jiray kawaankii dadka hadda waxa iskuulkaasi loo bixiyay Hayaan Commercial Secondary School waxaana wax ku barta 3,000 oo arday ayadoo waxbarashadooda ardayda saameyn balaaran ay ku yeesheen biyo xiray wadooyinka iskuulkaasi laga soo galo kuwa oo sidoo kalena saameeyay xaafadaha ka agdhow iskuulka waxaana ka wareysanay dhibaatooyinka biyahaasi ay waxbarashada ardaydaasi u keeneen maamulaha iskuulkaasi magacaygu waa Faarax Biiriye Warsame halkan waa dugsiga sare ee ganacsiga iyo sayniska Hayaan X School Xamar Jadiid ayaa la dhihi jiray biyahaas aad iyo aad ay culays weyn ayay ku hayaan iskuulka ardada xaafadda culays badan ayay ku hayaan gaar ahaan iskuulka dhibaatooyinka ay ku hayaan waxa kamid waxay fadhiyaan daaqadihii sida arkayseen irdaha qaar way fadhiyaan oo kama soo galno marka biyuhu ay sii bataana irdaha kuwa hadda noo furan naga xiraan inta badan cabsi weyn waxaan ka sii qabnaa hadii jidka soo kale soo kale in biyaha nagu soo rogmadaan oo iskuulka hadda qaybta shaqeynaysa xataa ay dhibaato u keenaan oo irdaha inta hadda noo furan ay naga sii xiraan sidoo kale waxaan booqanay halka loo yaqaano Cabdilshideeye ee lagu iibiyo alaabaha elektrooniga sida mobilada waxaan sidoo kale booqanay qaybta sarifka suuqa bakaaraha qaybta daawada amniga suuqa ayaana ah mid aad ay u adkeeyeen hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya oo har iyo habeen halkaasi dadka ganacsatada kala howlgala sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho.